Asalaamu calaykum walaalayaal, sidee tihiin? Waxaan rajeynayaa inaana soo dhaweyn doontiin oo ina cajabin doonaan barnaamijyada aan inii soo gudbinayno insha Allah. Maanta waxaan ku bilaabanaynaa qiso xikmadii ku dheehan tahay. Qisada maanta waxay ku saabsan tahay oday waayeela iyo laba wiil. Intaanan u gadagelin qisada waxaan inaga codsanaynaa subscribe, like iyo share. Beri waxaa jiray nin odaya oo fadhiyay meel u dhow dooxraac oo magaalo laga soo galo. Odaygii oo xaggii fadhiya ayaa waxa uu imiday wiilkii baa u soo dhawaaday odaygii, markaasuu ku yidhi waxaan u baahanahay, magaalada jadiid baan ku ahay, waxaan u baahanahay inaad ii sheegtid magaaladan sida loogu nool yahay, dadka ku nooli sida ay yihiin. Xoogaha adigu wiilku wuxuu rabay inuu odaygani tafaasiileeyo dadkani sida ay meesha sida looga nool yahay. Kadib odaygii baa ugu jawaabay wiilkii dhalinyarada ahaa oo ka sugaya jawaab mudan in maxaan ku dhahday loogu jawaabo, uu wax ka barto, odayga uu wax u sheego. Ayaa odaygii ugu jawaabay su-aashii uu weydiiyey, isla su-aal lamida uu ku yidhi halkii had ka timiday see loogu noolaa. Markaasuu wiilkii ku jawaabay halkii han ka imiday dad waxay ahaayeen danaystayaala, xunxun, laba wajiilayaala. Waanu ku faraxsanahay in aan kasoo garab dheeraado oon nolol kala samaysto, oon meel kale magaalo kale han imaado. Kadib odaygii waayeelkii ayaa ku yidhi waxaad ka heli doontaa isla halkan, wixii halkii aad kaga timiday, oo micnaheedu tahay wixii halkii aad kaga timiday isla halkan baa ka heli doontaa. In yar ka bacdi ayaa nin kale uu imiday odaygii, markaasuu ku yidhi isla su-aashii uu weydiiyey, uu ku yidhi hadda gobolkan jadiid baan ku ahay, magaaladan dadka ku nool ma aqaani, deegaankeyga ma aqaani, waxaan rabaa inaad ii sheegtid sida loogu nool yahay. Odaygii waayeelka ahaa ayaa ugu jawaabay wiilkeygiiow, sidee bay ahaayeen dadkii magaalada aad ka timid? Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa ugu jawaabay dadkan ka imida waxay ahaayeen dad naxariis badan, daryeelid badan, soo dhaweyn iyo daacadnimo leh. Waxaan lahaa saaxiibo badan, wayna adkeyd in aan kasoo tago. Odaygii baa markiisii ugu jawaabay halkanna mid lamida ayaad ka helaysaa. Intaa hay isweydiinayaan labada wiil, hay odayga su-aasha weydiinayaan, su-aasha isku midka ay weydiinayaan, nin baa maqlayay geel jira ah oo meel geeliisa ka waraabinayay. Markaasuu odaygii weydiiyey su-aal ma ku weydiin karaa, uu ku yidhi. Markaasuu yidhi haa wiilkeygii way weydiin kartaa. Labada wiil ee hadda had u jawaabaysay ee dhalinyarada ah, labaduba waxay ku weydiiyeen su-aal isku mid ah, oo waxay ku yidhaahdeen magaalada jadiid baan ku nahay, ee sidee loogu nool yahay. Markaasaa labadaba mid kastaba ugu jawaabtay aduu halkaad ka timiday see loogu noolaa. Kabacdi markay jawaabtii ku siiyeen, waxaa ugu celisay halkaa ka timiday halkeygii un weeyaanoo wax lamidaad ka heli adiguna. Macnaha halkaa had ka leedahay ma fahmin buu ku yidhi odaygii waayeelkii wiilkii galjiraha ahaa. Markaasuu ku yidhi wiilkeygiiow, adduunkan qof walbaaba qalbigiisa ayuu ku hayaa, wuxuu qalbigiisa ku hayo ayuu helaa. Kii wanaag halkuu joogay kusoo helin, wanaag kale kuma helayo halkan jadiid ku imiday. Kii halkuu joogay wanaag kusoo helayna halkan huu imiday wanaag buu ku helay. Faa'iidada qisadan aan ka faa'iidaysanayno waxay tahay inuu qof walbaaba wuxuu qalbigiisu uu ku haysto iyo siduu akhlaaqadiisu hay tahay in uu ku meel mari karo. Micnaheedu tahay haddii had mar walba negative tahay oo mar walba ka fikirtid dadkan waa dad xunxun, waa dadkan dad daryeelida maaha, dadkan waa dad laba wajiilayaala, isla sidii baad adiguna noqonaysaa oo qalbigaa kaa dhimanaya oo wixii ilaahay kuu dhaliyey ayaad iloobaysaa. oo micnaheedu yahay haddii ficnaanha u dhalatay halkaad adigu dadka ka bedeli lahayd adigaa lagu bedelaya. Marka aad positive ka fikiraysid qof walba
aad sidii adigu had jeclaan lahayd aad kula dhaqmaysidna waxaad noqonaysaa qof caaqila oo halkuu u socdo garanaya, halkuu ka yimidna garanaya. meel walboo tagtidna waxaad ku helaysaa wixii adigu ha tahay. insha allah faa'iidooyinka qaar ka mid a ayaan idin sheegay, inta kalena waa dhankiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.